السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني حكسة وحبرشة جامعة دلك يوغندا. وحمانت مرتين مدن ليبان علي أبوكر وكسعودو جامعة إسلامية دلك يوغندا إسلامي يونيفرسيتي إن يوغندا. وحن أقوم هالعلني إن مدن ليبان سيد شرفت له وقتي سقالي نوسيي وحكى حصود مدن مدرسة تربير سنة برنامج كان سوق بنقابسي برنامج كنا ما أنت وحى وكوة جهية هاي جامعة إسلامية يدلك يوغندا مدن الليبان سلو وهذا قالب بسم الله الحمد لله هذه الوقائع ما هذا إن برنامج كان قرق الدوام سوق بنقابسي هذا يتم كذا تربير سي runtii waxaa keentay fikrad aad u fiican oo dhaxalgala fikrad cusubna in jaamacadaha ardayda Soomaaliyeed ee magaalada Kampala ama dalka guud ahaan Uganda in warbixintooda kooban meel isku geeyo si dadkii iyo dalka ama dibadda kala jira ay u helaan marka wakaaga mahadcelinahay tiimkaaga barnaamijkaas quruxda badan aan sameysay oo cidna idinkaga horeeyay fikrad cusub ala timaadeen وانا دوا هذا ما صنتها مدن الليبان هذا برنامج كان نسيق وذا قالنا وكما ليبان علي أبوكر والله ليبان وقف كان هذا كهور فديو هذه تاريخ ذي كلا أنا مجيء قرط ليبان علي أبوكر وحاكم بشر مجال مقدشو وكركونه بربارة إيش وحبرشة دي أساسي من حقيقتي لا تسيجي سكولكي برانكي وحبرشة كان ديجان هان غير مقدشاك سوتي لا كدي مركي وحبرشة سكولكي شغل ماشي عن حق يوغندا ماذا وحنا كبير جامعة إسلامي بالفيس يوغندا أيو فرع هذا مين كامباس كإمباري ماشي سو أمباتي كبلال كنا دمي هذا ماستر شيء كوض مجال كمبالا جامعة كمبالا هذا ما صنتها مدنة هذا برنامج كهوس أو جسي دادجنو محان كان قارنا أو نقول كرتا جامعة إسلامية إدلك يوغندا والله سؤال بلارون واي هذا سوق جامعة هورتا وحالة أساسية طبعا كي جنوري كون سجال بحرستي وجامعة كلية إسلامية institution كذا وحبرشة خاب كذا إذن بالمجال هذا هو إسلامي جامعة كلية وطن كان قطالة إسلامي يونيفرسيتي يوغندا أيو على سوق أبيع وجامعة كدوان جامعة لها كلا إذن مكمش على جهة دخلك يقابك وحبرشة هذه لهذا جامعة داني وحيابا جامعة لها كلا كيف عن تحكم ذا marka waxbarashada la joogo waxa la yiraahdo Soomaali hadaan nahay ama adduunka wax musuqmaasuq la dadka xareeyay jaamacadani mid ugu musuqmaasuq leh طبعا waxaan oran karaa in xitaa aysan ka jirin anu maadaama jaamacadda iga wareysanaysa ayada ka hadlay waa jaamacadaha kale waxay kaga wanaagsan tahay taas adduunka waxa kale oo jaamacadaha kale kaga fiican tahay waxa kamid ah qofka maadaama anaga Soomaalida ama muslimiin nahay marka dalkii ka soo baxna wadankan nimaanana oo nimidina waxbarano wax tayo leh oo fiican dalkii aan wulin wax ka fiican in la laabano qofka Soomaaliga meel kasto kiina jaamacadda aad u anfacaysa وجاءت قفكم مسلم كصومالي قفك صومالي لا جان قاضي كرو institutionadii waxyaabihii wixii dhan quraana san waxyaaba leeyaf waxa quraana ku baranaysa sanadkooda hadda adoon quraanka toban bisan garanin jaahada ma dhameynaysa waxa rabta baro waxa rabta aqaan jaahada waana toban bisan basic islaamku waana basic toban bisan quraan kamid oo inaad taqaan waa taa qaali adaa dhigto wax badan ayaga si sheekeyma أدوم ما صنتها مدن الليبان هذا سؤالين نقصي دادقنو فكرتيها الشع أما كلية لها أي جامعة بحسه حد نقول شيء كرتا جامعة بحسها فكرتيها أدو بدن
xarumo badanna way leedahay oo wadanka 4 xarun ay ku leedahay xarun waxaa jirta gabdhaha kaliya loogu talagalay female campus gabdho kaliya xarun kalena waa main campus ku Imbaali xarunna waa Kambaale ku taala midna Arrow ku taala afartaas wadanka ku leedahay faculty tiro badan oo bixisa sida management faculty of management faculty of science faculty of health science faculty of arts and social science iyo faculty Islamic studies and Arabic language faculty of law bixisa faculty-yadaas ayagana department badan leh sida hada faculty management iyo kala accounting public administration HRM ki agostagaya finance business ki faculty of Islamic studies and Arabic language oo jaamacadaha Uganda insan bixin ayana bixisa oo department kala kala sida shariica wal qaanuun islaam daraasad islaamiya shariica wal qaanuun shaqada hadda ka baxay معلمين بدنا دغو فكرتيغاس oo masaari ah macallimiin carab macallimiin Ugandese oo carab wax ku soo bartay Saudi meelaha jaamacad Madiina Munawwara ka soo baxay wax ka dhiga jaamacad macallimiin oo takhassuso PhD oo doctor wax ka dhigan marka fakultiyada intaas ay bixisa oo department badan soo isgalay sida faculty of social science arts and social science oo kala department badan ay leedahay kamida wixii social kidana ku siiyo sida social science ko bachelor sida BDS ki development study sida SWAS هذه social work iyo literature kala linguistic literature kala yaa soo badan bixisa aad u maasantahay mudane haddaan su'aalaha ku sii soconno qiimaha fakaltiyaasha ay ku bixiso inta ku wareegaan waxaad nooga sheegi kartaa walaa qiimaha way kala duwan yihiin sanadba mar ay kala duwan yihiin tusaale hadda sanadkii aan dhiganay sanadkii ugu horeeyay intii dadkii ugu horeeyay fakaltiga ay baranayeen departmentiga ay baranayeen intii ku baranayeen in ka duwan ku bartay oo lacagta mar walba way korodhaa aniga sanadkii waxaa dhiib jiray lacag 1200 camal sanadkeeda lacagta marka waxa ku jirta waxbarashadii iyo deegaankii jaamacadda marka main campus waxay leedahay deegaan oo meel la dego arday deegaan ay leedahay boarding camal oo boarding marka meeshaas lacagtaas waxa ku jirto aniga marka 1200 dhiib dadkii ugu dambeeyay lacag ku siyaadaysay ilaa 100 ilaa 200 dollar lacag sanadkii lagu siyaadinayo marka lacagta marka waxay ku kala duwan tahay xirinta faculty walba department soo yahay laakiin al-umum lacagta oo guud jaamacadda baadka marka ka hadlayo waa lacag adigu gaarayso sanadkii marka qofka baadka bixinayo oo boardingkana jaamacadda Imbaali oo dhigto kala oo lacagta boardingkaas oo kala ku darayo sanadkii wuxuu bixinayaa lacag ilaa 1300 master kana markii qofku baranayo idana masterka qaybo kala duwan ku Imbaali way ku haysaa inta ku haysaa Kambaale idana total lacagta masterka oo lacag 4,000 isku tagayso si guud lacag sanadkii kala wada sanad ku baranayo waxa soo 4,000 isku tagaysa aad u maasantahay mudane xog fara badan baan ka ogaanay oo ka mid tahay jaamacadda inay leedahay deegaan la dhex degaaya gaar ahaan xarunteeda weyn ee magaalada Imbaali su'aasha xigta waxay tahay sidee ku tahay masterka fakaltiyaasha ay ku fiican tahay maxaa kamid ahaan isdhihi karnaa masterka horta waa jaamacadaha ugu horeeya Soomaaliya markay yimaadaan inta ugu badan masterka bartaan horta hadda ka mid tahay masterkeedana aad ay fiican tahay kamida inta ugu badan masterku yimaadaan sida management iyo kala ardayda Soomaaliyeed badan maadooyinka businesska
accounting badankooda aad u bartaan economicaas iyadana waa haysaa social science oo kale master ka haysaa sida political science oo kale waa haysaa conflict waa haysaa oo arday badan Soomaaliya ka dhigata jirto waxa kaloo masterka loogu yimaada Islamic study شرع والقانون العربي ku baxaysay waxa kaloo laga bartaa darasa islaamiyo kala wada bartay master xilliyeesa oo macallin takhasus dhiga طبعا adoo Madiina joogo wax kuma dhaanto dhulka lagu kala gudineen barashadii macallimiintii systemkii waa meesha joogtana waa waana wax akeeleysan meesha waa Madiina kale waa Madiina hadiyaad mudane aad u mahadsan tahay adiga liibaan ahaan fakaltii aad ka baratay waxaad noogu sheegi kartaa qofka u baahan hadhow inuu fakaltigaas bilaabo kaleeto fahan intee leeg baad ka siin kartaa wallaahi fakaltiga ka baxay waa fakalka arts and social science jaamacadda marka hore waxay leedahay bisheeg dabaqaad kale leedahay qofka Soomaaliga markuu ama qofka aan ka bixin wadanka waxbarasho dugsi sare aan qaadan waxaa loo bilaabaa wax laga foundation ama remedial ka soo bilaaba hal sano ku qaadana remedial ka si general loo moodo qaadana qof walba wuxuu batch ka badan lahaa loo sii diyaarina kii batch ku biira faculty ga doore department ga doore saasa bil and department ga doorto waa social science PSS ala dhahay waxaan bartay political science and sociology faculty marka waa in laba maaddo soo qaataa political gooni waa sociology gooni waa labadaas aan takhasus ah qaatay labada sano ugu dambeysay sanadkii ugu horeeyay laakiin maadooyin badan aan qaatay qasab ah inaan qaato faculty-gaas markaa dhiganayso kamid ah anthropology kamid ah islamic beebooyinka qaatay kamid ah maadooyin igala dhahay sociology iyo baadona ka soo qaatay igana political ka ururada qootay markii dambe maadooyinka guud oo waxaa jiro iyadana qastam in la qaasa ku sheegay sida quraankii arabigii iyo communication skills language and communication skills ka iyo islamic advanced islam inta bashatu islam qaadanayso qasabta qofka bay qaadanayso xaadirayso kadib markii inta la gaaray sanadka labada sano ugu dambeysay waxa dooranaysa maadooyinkii badan isku soo qaadanaysa wax kamid ah takhasuska inta kale askar reebo sociology and political science qaatay marka faculty-gaas aan ka baxay aan jaacad ka dhameeyay runtii guud ahaan marka ugu dambeyn guud ahaan si guud hada ka bixin jaamacadda waxaa rabaa horta waxaa la dhahay nin walba aysantiisa calka geesa jaamacaddan horta markaa dhiganayso waxaa qasab inaad dadaal samayso adoona dadaalin oo wax waxeenin way adag tahay inaad ka baxdo waxaa saas u leeyahay waxaa dhacda mararka qaar idoo la dadaalin in qof aa aragto waxbarashada dhameey qof baa soo dadaan waxbarashada dhameena laakiin jaamacaddan dadaalkaaga meesha uu ku gaarsiiyo ku gaarsiinaysa aniga hadda waxa ku bilaabnay faculty-ga department-iga maanta ku bilaabayna sanadkii ugu horeeyay 12 qof Soomaaliya ku bilaabnay 3 qof aan ku dhameeyay sideedii kale way hartay wax dhinta ku jiro iska hareen ku adkaat marka meesha waxa kaaga muuqanayso qofku markuu adkeeyo goosaha qabsado inuu dhameeyna meesha wala simtaxama dabcan hadii qish lagu qabto kala jaacada misi joogayso adagta marka hore laga digaa lagu sheexlaha suuq qashanaa lagu dhaaf iyo hadii Soomaalida inta ugu badan markay qish iyo dadaal yari maadooyinka la kugu soo laalaabto waxa saal ugu haraa marka jaacaddan waxyaalo jaacad ka fiican tahay kamida qofka ardayga fiican oo imaana qofka arday ahaan dad ma eedeeyo iska haraya saadad eedeeni sidoo kale waxyaabo aad si guud ugu fiican tahay kamida waxa arkaysaa dad badan oo dibadaha laga keenay sidii Europe oo kale iyo America oo kale family badan ka soo guuraa jira ilmahooda ay dhigtaan halkii Soomaaliya nabad ma aan dabcan halkii tiglaan inta soo dageen jaamacadii gabdhaha hadii aan xarunta goonido gabdhaha lagu xareeyay oo wiilasha aan xarunta kale la keenay jaamacad waxay noqotay international
dibadaha loogu yimaado oo ii sheego iyadana wax laga barto dabcan waxa waaye aad u anfacaysa Soomaalida qof jecel haddii tusaale lagu soo xiro wadankan uu joogo qof ilaa imaanay iyo soo dhaweey jaamacad waxbarashada isla markaa ay imbaaliya ku tuuraan 4 sano kadib qofka wuxuu soo baxayaa soo active barashaan diyaarsan aqoon ahaan wacyi ahaan iyo qof ahaan karti leh oo magaalada soo galaya marka aniga waxa waaye sawirka guud oo jaamacadda ka bixinayna intaas ayaa ku sheegi karaa guud ahaan jaamacadda idin gaar ahaan fakultiga qoska bartay shaqaalid waa barnaamijkii xogta jaamacadaha dalka Uganda qaybtiisii labaad waxa marti noogu ahaa mudane Liibaan Cali Abukar mudane aad baan kaga mahadcelinaynaa waqtigaada qaaliga oo noo hortay